اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آياداسي waxay ku taalaa fi suurati al-Maa'ida waxayna soo degtay xajjat al-wadaac fi yawm Arafah. Ilaahay jalla wa ala waxa uu aayada leeyahay اليوم maanta ayaan akmaltu lakum diinakum diintiinii ayaan idin dhammaystiray baa Ilaahay yidhi. aayadaasi diinta innaka leenoogu talagalay diinta Ilaahay baa la diintan innaka iska leh oo diintiinii maanta ayaan idin dhammaystirnay baa Ilaahay yidhi. diintiinii dadku waxyaabaha kale maanta ay sheegtaan laakiin diinta ma sheegtaan. ilaahayna waxa uu leeyahay ma diintaad idinku leedihiin ee diinta sheegta. dadku maanta dhulkay sheegtaan oo dhulka qaar waxay yiraahdaan annaka le qaar waxay sheegtaan waxay ku tabceen adduunyada ay arkayaan bay sheegtaan. aqalkan aniga le gaarigan aniga le ilmahan aniga le mehradan aniga le dhulkan annaka le may waxa soo dhan ilaahay baa iska leh adigu laakiin diintaad leedahay. وأتممت عليكم نعمتي نعمة ديدين ما أنت عندوش إنك تام يلبا إلى هيدين نعمة ديدين نعمة الإسلام نعمة القرآن نعمة الأحكام دينت إلهي مركا وشيغانا يا نعمة بكو شيغتا إنيته وهي دينتو النعمة adduunyaduna waa niqmad. diinta ilaahay nicmad ku sheegaa mar walba. dadka ilaahay dushooda uu nicmada uu dhigayna markuu ka waramayay ilaahay waxa uu lahaa adoomihii dushooda aan nicmada dhignay baa ilaahay lahaa in huwa illaa cabdun an'amna calayhi wajacalnaahu mathalan libani israa'iil. نبي الله عيسى عليه السلام إلهي مركو كورمي وحولها عيسى ابن مريم ما هين هدو أهانا وحو أهاؤون الضون بوها الضون أندوشي سنعمد دقنبوها بإلهي يدي وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ربني إسرائيل أنو قدقنا مثل أي كوديدان. نبي عيسى عليه السلام الضون بوها سدا أي نصارى أي شيء ما هين addoon buu ahaa addoon ilaahay buu ahaa rasuul buu ahaa ilaahay soo diray tabaaraka wa tacaala. markaasaa ilaahay leeyahay addoon dushiisa nicmad aan dhignay buu ahaa. nicmadda markay culimmadu ay sharxeen waxay yidhaahdeen nicmadda uu ka warramayo ilaahay nicmadda adduunyada ma ahayna waa nicmadda diinta weeyaan. oo nebi ciise calayhi salaam adduunyada aqal uu galana ma lahayn dhar xataa cawradiisa qariya oo aad u waaweyn oo fadfaadana ma sidan jirin baa la yidhi in yaroo markaa cawradiisa uu ku asturoon buu nebi ciise lahaa calayhi salaam. dhar badan oo innaku maanta sida aan dharka aan u leenahay nebi ciise dhar tiro badanna ma lahayn in yaroo cawradiisa uu ku asturo uunbuu lahaa. adduunyadana nebi ciise aqal kuma lahayn baa layidhi. markii layidhi aqalkaadii mee wuxuu yidhi aqalkayga saqfigiisuna waa samada gogashayduna wuxuu odhan jiray waa faraashkayguna waa dhulka. laba shay buu nebi ciise adduunka dusheeda ku lahaa bay culimmadu yidhaahdeen barkin uu barkado iyo weel yaruu biyaha ku dhaansado ku cabo ama uu ku maydho. labadaasuu nebi ciise wax adduunya uu ku lahaa. labadiina nebi ciise calayhi salaam uu ka maarmay oo iska tuuray. waxauna kaga maarmay markuu arkay nin reer miya oo sacabkiisa biyaha ku cabaya kuna maydhanaya markuu arkay ayuu yidhi weelkani waa igu ziyaado deedna uu iska tuuray. haddana maalin kaluu arkay nin baadreer miya oo gacantiisa maaragtaanay ka dhigtay barkin oo barkaday markuu arkay ayuu yidhi maaragtaanay barkintana waa kugu ziyaado waa israafe iyadiina uu iska tuuray. marka nicmadan ilaahay nebi ciise uu dushiisa dhigay ee qur-aanka uu sheegaya bay culimmadu yidhaahdeen ma ahay nicmad adduunye ee nicmadda adduunyada nebi ciise sidaa culimmadu ay sheegeen buu ka ahaa. oo adduunka dusheeda aqal kuma lahayn gogol maaragtaane uu ku seexdana ma lahayn weelal uu cuntada ku cunana ma lahayn
dhar uu ku babadishana ma lahayna in yaroo cawradiisa uu ku asturo uunbuu lahaa nebi ciise calayhi salaam laakiin nicmadan qur-aanka uu sheegaya bay culimmadu yidhaahdeen waa nicmadda maaragtaane nicmatulhidaaya ilaahay baa hanuuniyey ilaahay baa islaamnimada ku deeqay shareecad la yidhaahda injiil baa ilaahay u soo dhiibay nebi rasuula ayaa ilaahay ka yeelay bal shanta nebi ee nebiyada ugu qiimaha badan leh ululcasmi la yidhaah qur-aanku sida gaarka uga warramay ayuu nebi ciise ka mid ahaa calayhi salaam qur-aankana meelo fara badan baa ilaahay ku sheegay nebiga magaciisa iyo taariikhdiisaba marka innakana ilaahay baa inagu leh alyawma akmaltu lakum diinakum maanta ayaan diintiinnii ininka inii dhammaystiray wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydiina maanta ayaan dushiinna ku taam yeelay waradiitu lakum lislaama diina diinta islaamkana baa ilaahay aniga raalli inigala noqdo inii doortay baa ilaahay nagu yidhi aayaddaasi markaa xajatalwadaac bay soo degtay markii nin yahuudiya ayaa cumar bnu khataab ku yidhi aayaddaa maanta dushiinna ku soo degtay haddii annaka noo soo degi lahayd maalintaasi ciid iyo farxad baan ka dhigan lahayn deedna cumar bnu khataab radiallaahu canhu markaa buu nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam deedna markaa buu nebigu yidhi oo sobciidu ciidul adxa soo ma ahayn buu nebigu yidhi ciidul adxa labada ciidood ee muslimiintu ay leeyihiin inay farxaan loo jideeyey waa ciidul adxa iyo ciidulfitri ciidulfitrina waa tii rabadaanka ka dambaysay kowda shawaal ahayd ciidul adxana waa ciidda carafo weeyaan labadaa ciidood muslimiintu maxay ku farxaan baa layidhi waxay ku farxaan ciidda soonkana waxaa lagu farxaa soonkii aad maalinkiina aad soo dhammaystirtay qiyaamolaylkiiyo taraawiixdiina ilaahay uu ku dhammaystiray ayaa farxaddeeda lagu farxayoo loo ciidaabay culimmadu yidhaahdeen soo ciidda ciidul adxana waxaa loo ciidayaa shareecadda iyo diinta maalintii nebigeenna la noogu dhammaystiray xajatalwadaac ayaa layidhi diintii baa lainii dhammaystiray ku farxa baa layidhi markaa maalintaas marka diinta islaamka ilaahay baa ina siiyey iyadoo kaamila waa diin dhammaystiran weeyaan seeskeeguna waa arkaan alislaam iyo arkaan aliimaan saqfigeega halka ugu sarraysana waa xusnul akhlaaq bay dhahdeen culimmadu diinta islaamku sees aqal walba marka la dhisaya sees buu leeyahay seeska diinta islaamku waa arkaan alislaamka iyo arkaan aliimaanka arkaan alislaam an tu'mina billaah أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل أركان الإسلام كي أركان الإيمان كنا واللحويان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى لحظة أركان الإيمان والتوحيد كشهادتينك بماركتان اللقوة إضافين يا وضحوص إيمان يا مويان ركنك أساسك وحويان وإله جل وعلا إله إن الرمي لآمن ويان نبع نبينا ويمد عليه الصلاة والسلام وحول قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك لا أسأل عنه أحدا غيرك نبي الله دين تا إسلام كقول إقده أذيك دبضانا عدا بأنا ويدين مركاب النبي كيد عليه الصلاة والسلام قل وحاتر هذا آمنت بالله ثم استقم وحاتر هذا إلهي وان رميي وان آمني لأن دين تا إسلام ككو تصنوب النبي قل استقامك يالو دين تا إسلام كإلهي كوكو داقي آمن إلهي كما هو بأسمائه وصفاته جل وعلا سيد إلهي جل وعلا وحق أيش إن لو آمن أو آمن أسماء إلهي آمن صفاتك إلهي أزلقا آمن صفات الله عز وجل إلهي نمر والبكف كفكر ذات ذي سي وعد كفكر تا خلقك إلهي كفكر لا تتفكروا في ذات الله بنبي يقول تتفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا بنبي يقول عليه الصلاة والسلام هكفكرنا بنبي يقول يا إلهي جل وعلا لكن واحد كفكر إنسان بنبي يقول إلهي مخلوقات كيس كفكر أزويدين إلهي جل وعلا سدو يجيهي طول يجيهي
taa ha ka fikirina buu nebigu yidhi. yaa abuuray, ayaa dhalay, halkuu ka yimiday, halkuu ka bilaamay, may ha isweydiin. taa haddaad ka fikirtaan buu nebigu leeyahy waad halaagsamaysaan. laakiin waxaad ka fikirtaan ilaahay makhluuqaadkiisa ka fikira. makhluuqa ilaahay abuuray ee horteenna socda eeg oo deedna ilaahay casa wajalla awooddiisa ka dhex arag. marka ilaahay aamin kamaa huwa biasmaa'ihi jalla wacalaa wa sifaatihi, sifaadkiisa ilaahay aamin. deedna umma istaqim, ilaahay markaad aaminto ee shareecaddiisa islaamkana aad aaminto ee shareecaddiisa islaamkana aad ku dhaqanto, waxaa laga rabaa diinta islaamka inaad ku yeelatid maaragtaane istiqaamo ku yeela, ku sugnow. markaa istiqaamada waa maxay? waa toosnaan. ku toosnow. dadkuna diintan inay ku toosnaadaan waxay culimmadu shardi uga dhigan laba shay: qofku inuu iimaan dhaba leeyahay oo iimaankiisu kaamil yahay, iyo inuu haysto maaragtaane mujtamac wanaagsan oo diin ku dhaqmaya inuu haysto qofku. labadaas siyaaba ayaa u dhib yaraynaysa qofka diinta islaamka inuu ku sugnaado una ku dhaqmo. iimaan yaqiin dhaba inaad u leedahay diinta islaamka biqadri alkhawf. hadba intaad ilaahay aad garata eed ilaahay ka baqaysid ayaad amarkiisa ku toosnaan. hadba intaad macluumaad leedahay maaha, macluumaadku waa gooni. hadba inta iimaankaagu iyo yaqiintaadu ay dhisanto ayaad diintana maaragtaane aanad ku dhaqmi kari, aanad ku toosnaan kari. ogow, haddii iimaankaagu daciifuu yahay, mujtamacaad dhex joogtana uusan mujtamac diini ka muuqata uusan ahayn, diintaada waxay noqonaysaa markaa gallinna dhinac baad jirtaa, markaa gallinba dhinac baad aadi. markaas zamanku hadduu xumaado oo ummaddu ay fasaado, inaad ummad fasaaday oo xumaatay diin aad ku dhex danayn kartaa way adag tahay. inaad diin aad ku dhaqmi kartaa ummad fasaada dhexdeeda way adag tahay. mujtamac wanaagsan wuxuu kugu caawinayaa inaad diintaada wanaagsan aad ku dhaqantaa. mujtamaca liita ee cibaadadiisu liidatee dhaqankiisu u fogaadayna waa fududahay marka inaad adiguna mujtamaca aad raacdo ay ku qayiraan. ninkii reer bani israa'iil ahaa ee 99 nafgooyey ee yidhi nin caalima oon mas'alo diiniya weydiiye ii tilmaama, nin raahiba ayaa loo tilmaamay. raahibku waa ninka caabidka cibaadada badan leh laakiin aqoontiisa axkaamtu ay yar tahay weeyaan. deedna markaasuu u yimid oo wuxuu ku yidhi 99 naf baan gooye, toobad miyaan leehay? markaa buu yidhi may, adigu toobad ma lihid. fa kammala bihi 100 baa layidhi, 100kiibuu isagii kaga dhigo qoortuu ka gooyey. isagii 100 buu kaga dhigay. haddana ninkii uu fadhiisan waayey wuxuu yidhi ila raadsada buui, ila raadiyo ii doondoono ii tilmaama nin caalima oo mas'alada aan weydiiyo toobadda. markaasa fadulla calaa caalimin, nin caalima oo axkaamta yaqaana ayaa loo tilmaamay. laanna caabid kasta caalim maahin baa layidhi, laakiin caalim kasta caabid uu noqon karaa. caalimkuna waa indhaha ummadda weeyaan. ninka caalimkaee faqiihe diinta yaqaana waa indhihii ummaddu ay wax ku arkaysay culummadu. caama hadday culummo weydo, caamadaasi waa caamo indhabeeshe. ogow, waxa maanta nolosha muslimiintu ay la qalabaa gadinaysa waa caynkaa ee la kaca ku fayno. laanna caamadu culummada kuma xidhnay, caamadu maanta siyaasiyiintay ku xidhan tahay. siyaasiguna ma aha mid indhihiisu ay shaqaynayaan oo qalbigiisa iyo maskaxdiisu ay furan tahay maaha. waa mid nolosha adduunyada u yaqaanee nolosha aakhirada ka madow isagana. lidaalika ninkaasi wuxuu raadsaday nin caalima, laanna culummadu waa indhihii ummadda weeyaan. haddaad caalim aad cilaaqo la yeelato, bal diintaada waxaad ku caabudaysaa si cad ilaahay ku caabudaysaa. balladh naxariis diintaada waxay noqonaysaa diin waasicay noqon. deedna markaasaa nin caalimaad loo tilmaamay. caalimkiibuu u yimiday, mas'alad buu weydiiyey. wuxuu ku yidhi 100 naf baan dilay, toobad miyaan leeyahay? markaa buu yidhi haa, toobad waad leedahay buu ku yidhi. toobadda iyo adiga
cidina dhexmari kartaa ma jirto toobadda waxay ka dhaxaysaa addoonka iyo rabbigii 100 nafood haddaad dishay toobadaada haddaad doonay in laga aqbalo oo ay ansaxdo waxa shuruudeeda kamid ah wadankan aad ku nooshahay waa dhul xun weeyaan oo macnaha dad xun baa ku nool dadkaasi waa dad mar walba dhiiga daadinaya oo dagaal iyo rabshad iyo maaragtaan qaylo mar walba u taagan iyo dhibaato u taagan ka dhaxbaxa buu keenay mujtamacan oo xagee tagaysaa mujtamac wanaagsan baad iyo ku tilmaamaya dhulkaas aad tagaysaa dhul leeyahay meel heblaayo dhulka dad wanaagsan baa ku nool oo ilaahay halka ku caabudo dadkaas aad u tagideena ilaahay la caabud buu ku yiri dadkaas danaway sidii buu yeelay ninkii wadankii uu dhiiga uu ku galo dhagarta uu ku galay buu badilay wadankii uu hijroonay dadka wanaagsan ay ku noolaayeen isagoo aanan gaadhin ayaa ajashiisa dhexda ku qabato oo dhintay malaa'ikatul cadaab iyo malaa'ikatul rahma isku qabatay buu nabigu kaleey salaatu wassalaam inakuna sida qofka bini aadanka marka ruuxdu ay ka dhacdo aan jirkiisa maaragtaan kafanka iyo nacashka iyo qabriga aanu la diyaar garoobayno ayaa qofka maaragtaan ruuxdiisuna malaa'ikta ayaa u imanaysa hadduu ahlul janna yahayna malaa'ikatul rahma qaadaysa buu nabigu yiri hadduu ahlun naar yahayna malaa'ikatul cadaab baa qaadaysa لأن لبدي ملك باسكوي مدو قار وحي إليه وأهل النار بقول نفبو قبايا ودقر قبع نكن النار بانو قادنا الروح دي سأنك قادينا قول ذيك لوحي إليه جاء تائبا إلى الله عز وجل إلهي بأسوى نقضى وطوبت كيني ما ركتاني جنة يحقا نحرست إلهي بالله قاديا مركاسا ملك سورة آدم يلا أيا إلهي أسوى دري تبارك وتعالى لأن مركاسا ملك إلا يدي وحاد مترسا دولك ودنبك كوغلي يا دولك وهجروني qiyaas baa lagu yiri dadna markaas waxa uu batay dhulku u socday buu markaa ayuu u dhawaaday taaka inta leeg baa la yiri wa fi riwaayat kale waxa uu nabigu yiri ilaahay baa amar ku siiyay dhulku u socday ee dadka wanaagsan ay ku noolaayeen baa la hadlo lagu yiri adoonkaasi waa toobad keenay u dhawow dadna taaka inta leeg buu u dhawaaday taaka inta leeg sidaas markaa malaa'ikta naxariistu ay ku qaadaan ahlul janno ku noqdaan la yiri وشرع لمن كان قبلنا بعلماء ولادين ومده نجوه الرئي توبدو ذا إن أقبل واحد الله شردنا أي إن المجتمع أي كل حجران اللي تا فساد سن دي قد دادنا يا دجالما يا إن يدتكو كدح بحان ومجتمع وناكسن أو دين لو الله كعبس ماشي جوجان إن وهجرودان أي ما ركتنا شريعته ومضاه ركمده هيد أما إنك شريعتنا توبد علماء مركي كهلين وكوي لها توبد مركي أدونك يا إلهي سكد حيث وصدح ويان صدح ذا هدي لقاه لا توبد هذا وأنصح حيسا هدي مد لقاه ويا توبد هذا أنصح ميسو ككوباد وكي علماء وحيد هذا دم بجاءت كجرتي وين أتكدح بحذا طلباتنا ما ركتاني دم بجاءت سمينيسي وين العزيمية جوانا التي ما دينا المرلبة دم بجاء أنا دقول نقول تصدحنا وين المركز حصوصة دم بجاءت سمين جرتي وين أتكقوم ما يساوي كنا ذا موتا صدح ذا هدي قفك طائب كان لقاه له توبدي سوى أنصح حيسا صدح ذا هالشرد هدي مد وكم غير هنا توبد هذا وناقص ولويان هدي بني آدم حق نيسي ماشي وكجرنا شرد أفراد بعلماء الشيخين وحيد هذين وين وقفكم ما ركتاني حق بني آدم اللي قولها وين وقفك وحيس يسكع عليه ويان أما وين وعفس كضلبه marka ummadihii naga horeeyay toobadooda waxa looga dhigay shuruud inay ka dhaxbaxaan mujtamacan xun ee dhiiga ay ku dhaxdaadiyeen oo deedna mujtamac wanaagsan oo meel wanaagsan ku nool inay raadsadaan ba shardi looga dhigay marka waa min asbaab istiqama ala diin qofku inuu diintiisa ku toosnaado oo ku sugnaado labada bay culimadu shard uga dhigaan inuu iimaankaagu kaamil yahay hadduu iimaankaagu kaamil yahay oo yaqiintaadu ay dhab noqoto mujtamac kastood ku dhex jirto ku saameeyni maayo laana qalbigaaga ayaa ka buuxa iimaan iyo alla ka cabsi baa ka buuxa mujtamacu ku saameeyni maayana waxaad noqonaysaa muumin baad noqonaysaa xaalad walba ilaahay aaminsan oo ilaahay amarkiisa ku toosan talabaadna inaad diintaada ku toosnaataay oo ku dhaqantaa waxa sabab u noqon kara waa inaad heshaa mujtamac wanaagsan oo diinta ku dhaqmayo diinta danaynaya anta mujtamaciyadeena ka warana ku dhaxnoolahay sigada diinku dhaqankeedee inta tukatay inta aanan tukan
inta tukata ayaa yar oo inta aanan tukan bay naga badan maanta taasudamaha xaafad walba waraysta tuulo walba waraysta magaalo walba qiyaasa dadka tukanaya inta aanan tukan baa ka badan inta tukanaysa iska daa diinku dhaqankeedii nabigeenu alayhi salatu wasalaam wakiilaha almar'u ala diini khaliilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil qofku saaxiibka cidaad saaxiib ka dhigata diinta uu qaba baa diin adigana ku noqonaysa nin walba ninka la saaxiib iska eeg buu rasuulku yidhi bulshadu waa taas bulshadu wanaagsan haddaad hesho inaad wanaagsanaataa way suuragali haddii laakiin bulshada aad ku dhex nooshahay bulshad liidata oo cibaadadu ku yar tahay oo salaadu ku yar tahay oo fisqiga iyo fujuurka iyo macaasidu ku badan tahay haddaad ku dhex nooshahay waxaa suuragal inaad si wada noqoto adiguna marka dambe dadkii soo hijrooday waxaa ka mid ahaa Ubaydullah bin Jahsh nin la oran jiray Zaynab bint Jahsh waa nabiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisii xaas ka mid ah walaalkeed iyo xaaskiisii uu qabayo la oran jiray Ramlata bint Abi Sufyan Ramlata bint ibnata Abi Sufyan aabaheed wuxuu ahaa magaalada Makka caaqilka magaalada Makka ama suldaanka magaalada Makka ayuu ahaa qoyska ugu laandheersan ee magaalada Makka ugu tiro badan ee ugu tayada fiican way ka dhalatay laakiin inay aabaheed iyo hooyadeed iyo walaalaheed inay ag joogto waxay ka fadishay inay iimaankeega iyo diinteeda ay la hijrooto oo kala hijrooto bilaad al-shirki ay u hijrooto wadan ay iimaankeega iyo diinteeda xor ay ugu haysato halkeenka dadkeenu maanta wadannada muslimiinta ay ka hijroonayaan ay uga hijroonayaan maaragtaan ciyaalka ayaan tacliin la raadsanaya ciyaalka ayaan caafimaad la raadsanaya ciyaalka ayaan nabad la raadsanaya ciyaalka ayaan bariis la raadsanaya may waxa diinta islaamka kuma ogolo wadan muslima inaad ilmahaaga ka qaadataa oo wadan gaala aad u doonataa maciishad diinta islaamka kuma ogolo diinta islaamku waxay ogoshahay wadannada maaragtaan gaalada ee iimaankaaga iyo diintaada dhaawacaya inaad kala soo hijrootaa ilmahaaga oo u soo hijrootaa meesha aad isleedahay iimaankaaga iyo diintaada way ku xafidmaysaa inaad timaaday diinta islaamku ku ogoshahay Ramlata bint Abi Sufyan ninkeedii Ubaydullah bin Jahsh bay ayay la hijrootay ilaa ardul Habasha markay yimaadeen Malik an-Najashi baa soo dhaweeyay saxaabada rasuulka afayeenkooga u hadlayay wuxuu ahaa Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu dadna boqorkii wuxuu weydiiyay diinta islaamku maxay nabi Ciise ka qabtaa waxa ku dul akhriyay suuratu Maryam buu ku dul akhriyay ملك النجاشي للما كدادتي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وقد جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين في سورة المائدة إلهي جل وعلا واكا كغور رمي حالة بقر كالنجاشي كتمدي مركي جعفر بن أبي طالب ودوشي سكو أخريي سورة مريم سورة مريم وحي كورميسا عيسى ابن مريم بي كورميسا عليه السلام هو يدي مريم كورميسا رسالة نبي عيسى لودي بي كورميسا شريعة نبي عيسى لودي بي كورميسا أنبياء فربضان بي كورميسا بقر كادوشي سمركي سورة لغو أخريينا للمدى كدادتو إلهي واكي نوغو شيغي وقرآن كأيي مغليان قرآن كمركي مغلان إنه غي للمدى كهوبان إسابة إلهي يدي قرشد أي قرتين إنو يهي كلامك إلهي تبارك وتعالى إنو يهي مركزول والله كلامك النبي موسى أفكيس كسو بحايي والتوراة هي كلامك النبي الله عيسى بن مريم أفكيس كسو بحايو إنجيلا هي قرآن كاسي ملك لي كسو وضبحين ووحي إلهي بويدي دول كيقوا دول نبضة أمني باتكو هايستان عدالة باتكو هايسان هالكا إسكدق يقولوا كن ولاد وهالكا إلهي كو عبدا مركا أقل يربي مركا qoys intii u wada socotana aqal yar baa la siiyay dhisteen oo cariish bay dhisteen gabadha Ramlata bint Abi Sufyan radiyallahu anha habeenada kamida waxay ku manaamtay ninkeedii oo suuradiisii la bedilay
markaasay ku tiri waryaa waxaan ku manaamay adoo suuradaadii la bedelay maxaa ka jira sidee wax u jiraan wuxuu yidhi waxaad aragtay waxba kama jiraan naga seexa buu ku yidhi haddana habeen labaad bay ku manaamtay ninkeedii oo suuradiisii la bedelay markaa bay ku tiri warrayadii baa igu soo noqotee see wax u jiraan ii sheeg haddana habeen saddexaad bay ku manaamtay markaa bay isagii baa runta sheegoo ku yidhi anu diintaydii waan bedelayoo diinta islaamka waan ka baxo diinta nasaaradan galay buu ku yidhi inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun ayaan darro weeyaan waa ayaan darane ninka islaamnimo la soo hijrooday ardul ee Makka kala soo hijrooday iimaan iyo islaamnimada inuu badbaadsado ee ardal xabasha markuu yimidana fitnoobay waa nas'al allah alcaafiya ilaahay baan ka magan galay inuu inakana nafadneeyo mar walba ku ducayso yaa muqallib alquluub thabbit qalbi على دينك وبدل دينتيسي وردوبي islaamnimadii buu ka baxay mar hadduu qofku diinta islaamka ilaahay siiyey uu ka baxo diin kale oo xaq oo adduunyada jirta ma jirta ogow laa yasmacu bi ahad min hadhihi al-ummati يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار بالنبي عليه الصلاة والسلام أحد أمة محمد أحد أمة إذا أما يهودي هذا بالنبي أما النصراني من هذا إمام مغلو حدو إمام مغلو إسقو أنا الرومين هدي أجتش كتم أدنا كاس النار بكو دعيب رسولك يدي islaam diin islaam mar haday adduunyada timiday wixii adduunka diin islaamnimada horteed jiray oo dhan diinta islaamku iyada masaxday ugu saasoo markaa ninkaas uu ku noqday murtad uu ridoobay isagoo shaarib al-khamriya oo ridoobo murtad oo diinta islaamka ka noqdeen ardul xabash ku dhintaan la yidhi Ramla radiyallahu anha dadna gurigeedii bay markaa iyadoo kaligeed habeen madow halka ku seexata aqal dhexdii wadanka ay timidana dadka ku nool afkooga garanay mayso ninkii kaliya weelka ay ka dhiganaysay ee aabaheed iyo dadkeega iyo ubadkeega iyo qaraabadeedii ay ka soo raacdayna ee weelka u ahaana uu ka ridoobay intuu ridoobay isagoo shaarib al-khamriya ayuu ardul xabasha ku dhintay baa la yidhi kaligeed markaa aqal dhex seexataa waxaa taariikhda ku qoran habeenada kamida waxay ku manaamtay dayaxa oo ka soo dhacay samada oo dhabteeda ku soo dhacay Salama radiyallahu anha oo jamaacada muhaajiriinta la socotay bay manaamkii u sheegtay oo tiin manaamka baan arkay bali cabira markaas ay dumarkii la soo hijrooday waxay ku yiraahdeen wallahi garan mayna waxaan u maleynaynaa nin sayid suldaan xaaqil boqor waxa bin aadanku darajaad iyo mansab adduunka dusheeda ay ku sheeganayaan nin ka wada darajad sareeya inuu zawjku noqoni doono ayaan arintaasi u malaynayna dayaxa dhabtaada ku soo dhacay ayaan ku cabiraynaa bay ku yiraahdeen riyada wanaagsan ee ku manaamta ilaahay xaqiisa ka ahaatay buu nabigu yiri qofka aad isleedahay khayr baa ku tuhmayaaba loo sheegaa waa wuxuu kugu cabiro qofkaasi weeyaan riyada xun ee hawaawiga naxdinta badan lana taa lama sheega buu nabigu yiri shaydaan xaqiisa ka ahaato lama sheego waxna ka qaadi mayso laakiin riyo wanaagsan baad ku riyootay oo farxad leh waxaad jeceshahay wax ka farxiyay qofka aad isleedahay qofkaas uu ka khayr badan yahay diintana aqoon buu kaaga leeyahay uu ka aqoon fiican yahay waana ka iimaan fiican yahay qofkaas loo tagay manaamka baan arkay cabir baa la yiraahdaa wuxuu kugu cabiran oo noqdaa bay culimadu yiraahdeen riyada xun ee hawaawiga ee naxdinta leh adoo aqal kugu gubtay ama adoo gaadhi kula qallimay ama adoo diyaarad kula dhacday ama adoo aas ka qayb galay ama adigoo bukka ama adigoo fool xun riyooyinka xun lama sheego waayo shaydaan bay ka ahaatay buu nabigu kaleey salaatu wasalaam habeenkii riyada noocaas ah naxdinta la markii lagu manaamay la soo ambabare la kaco waxa sunna ah 3 jeer ba qandhoof yar dhinaca midig ba laga tufa xagga bidix ayaa naqasir laga afuufaad a'uudu bi kalimaati illaahi taamati min sharri ma khalaq dadna marka jiifka dhinacaad u jiiftana waa la bedelaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam
marka ayadu waxay ku manaamtay dayax samadayaxii oo samada ka soo dhacay oo dhabteeda ku soo dhacay waa riyo wanaagsan marka bay u sheegtay ummu salama radiyallahu anha riyadii waxa loogu cabiray nin mansabkiisa iyo darajadiisa waxaan ku qiyaasnaa annagu aanan garanaynin ayaa zawj ku noqoni doona baa lagu yidhi yaa u noqday markaa zawj ma taqaanaan nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa jibriil baa u yimid oo ku yidhi rabbigaa baa ku soo salaamayey salaam baan rabbi kaaga wadaa waxaana lagu amrayaa inaad guursatid ramlata binta abi sufyaan gabadha ninkeedii ku weyday ardulxabasha ee ilaahay dartii ardulxabasha iyadoo muhaajirada u joogta ee keligeedna aqalka yare cariishka dhex seexanaysa gabadhaasaa zawjad inaad ku noqoto lagu amree halkaa ka guurso ka mehersan lagu yidhi deedna markaa buu nebigu soo diray markaa ergo boqorkii najaashi baa nebiga meherka ka bixiyey dadkii iyada la socdayna waxay ka dhex dooratay Khalid ibn Saciid ay ku tiri adiga iga noqonaya bay ku tiri maaragtaan waligayga adiga iga noqonayo dad igu dhow taana markaa bay noqotay ummul muuminiin radiyallahu anha ramlata bint abi sufyaan gabadh qiimo badan bay noqotay madiina ayaa nabiga loogu keenay kaleey salaatu wasalaam daana madiina markay timiday ayuu nabigu dajiyay aabaheed Abu Sufyaan oo markaa gaala oo wali aanan islaamin ayaa magaalada Madiina u yimid inuu nabiga la galo sulx iyo heshiis markay nabiga wada hadleen ee ay sulxigii arrimihii laga wada hadlay ayuu istiri bal inantaadii ramla sii maro sii buuqo daana markaa buu aqalkeedii buu galay gogoshii nabigeenu ku jiifsanaya markuu yidhi ku fadhiisatid gogoshii bay ka hor qaaday baa la yidhi markaa buu sidaa u eego wuxuu ku yidhi aabbo ma firaashka aniga ii qalmin mise anaa firaashka u qalmin buu ku yidhi maxaad iga hoos qaaday markaa bay ku tiri maya aabba firaashkan waa firaashkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku jiibsanayay uma qalantid inaad adigu aad ku fadhiisatid bay ku tidhi waayo adigu nin mushrika oo nijaasa ayaa tahay firaashka nabi maxamed waa firaash daahira bay ku tidhi dal firso iimaanku waa cajiib waa aabaheedii dhalay islaamnimada markay timaado diinta islaamku waa inaad garataa ayaa la xidhiidhinayn ayaa wax la siinayn ayaa la jeclaan ayaase la jeclaanayn ayaa xidhiidhka loo jaray ayaa xidhiidhka loo dayn waxaasoo dhan diinta islaamka ku amraysa alwalaa walbaraa bay culimmadu yidhahdaan alwalaa walbaraa yaase la xidhiidhin ayaase la goyn ramla radiyallahu anha gabar taariikh labay noqotay markii dambe taariikhdeedu cajiib ay tahay marka diintooday la baxsanayeen siday u badbaadiyaan iimaankooda islaamnimadooda Suhayb ar-Rumi radiyallahu anhu ayaa markuu hijroonayay Madiinat al-Munawwara nimankii mushrikiintu dhaxday u galeen markaasay ku soo baxeen nin malqabeen Abu Suhayb radiyallahu anhu Aba Yahya waxay ku yiraahdeen Suhaybow adigoo sacluuka oo faqiira ayaad magaalada Makka noogu timiday waxa dhaqaale ee maanta haysatana magaalada Makka dhexdeeda ayaad ka samaysay ma waxa doonaysaa dhaqaalihii intood qaadid Makka dhexdeeda aad ka samaysay inaad Madiina la tagtid may dhaqaalaha ma qaadan kartid baa lagu yiri waa ku dilaynaa wuxuu yiri waad dilaysaan laakiin ana waan dili buur ana wuxuu ma niga dili ogaada buur dagaalkana qaana buur nin waxaana hay Roomiya leebka sida loo gana ayaan qaana haddaad idishaan waad iga tira badan tihiin laakiin anna rag baan galaafan buu ku yiri haddaad dhaqaale oo doonaysaan dhaqaalaha ana ay nisiin buu lacagteedii oo dhan waan nisiin intaan watano gacantan iniga saari magaalada Makka ee ka soo baxay wixii dhaqaale meel yaalena waa nii tilmaami laakiin dariiqa ay banayay buu ku yiri dariiqaas waayo nabigeeygi Muhammad calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadeedii baa ka daba tagaya iimaankayga iyo diinteyda ayaan ilaalsanayaa iimaankayga iyo diinteyda wax walba aniga igala qiimo badane dariiqa ay banayay buu ku yiri mare agtooda diinta qiimo leh agtooda maxaa qiimo lahaa iimaanka lacagtu qiimo ma leh
وهاجاك بيدادين لعقتي بو غعنتا كسار waa kana qaata magaalada makana madaxweynaha lacag ba igu aasana ka soo faqday buu halkaana kala soo baxa laakiin wadada ay banayay buu ku yiri rasuulkaygii baan u tagay kaleey salaatu wasalaam ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله هجرة السعودان هجرة مؤبدة ما هجرة يرو وقت ير أو كوبان انتي مقنادان أي مقالة مكة كسون نغنيان ماها وهجرة مؤبدة أقل ذو ذي بيكتغيان بيروه ذي بيكتغيان تجارة ذو ذي بيكتغيان قرابة ذو ذي بيكتغيان وحي دورتين إلهي رسول قيسي دورتين وحي وردن بأوسيي وضدي بأوبنيين مركز أوسعدي هل ساعة قدهد أيوها نغني يوم القبانة ساعات كدبنا وحون نقضي نين فقير ونقضي سوق فقيرة وقعنتي ساشلين كجرين أيو مقالة مكة سوق مدينة سوق لي بالليل يا سودوي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومحو نبي كو سودوي ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى بيعك جناسك هذا إلهي لقى شيء واتكلم عايشين النبي وكيد ما أنت لأن اختبار بوها اختبار إلهي الرسول كأردنا يا دوية هذه أردنا كلا دورة بيهيد لأن إلهي عز وجل وحكوا إلهامية صحابي قاس إنه يراد العقد قيمة ملقاتها لكن نبي الله محمد بان كدبه تجي فرها يقعد وضدها اي بنيه امتحان لأن مركز النبي يقول لي ربح البيع أبا يحيى بايع مشتركة ما أنت إلهي أدي إلهي ندحمري وأتكلم عايش سيب النبي يقول عليه الصلاة والسلام يا أوشيك النبي قصة العادي وحي بان نبي الله وشيء وحي ماشى قضيته أي كذا عايز ومكة ودويد تلفوننا زمن كان هايسنية آلات كان أقوى اتصال الناس سريعة وحي أردن بعدوية ده مركبة أوجد بيني ما هايسن لكن جبريل بان نبي كوسو دقو ورميا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد مؤمنين توحى كمدة با إلهي إلهي من نفتي سي حولي سي دقاله سا كويب سنة يا إلهي رضيه سا وأبا يحيى أيا كمدة با لقيري صهيب الرومي با سو السعودة ودقاله سي كدورتي إلهي الرسول جسن رالي قليا كدورتي لعقتو أكتو ذا قيمة مله قبيلكو أكتو ذا قيمة مله دبلومكو أكتو ذا قيمة مله أقلدو أكتو ذا قيمة مله دولكوغو أكتو ذا قيمة مله أكتو ذا وحا قيمة لإلهي رسول كيسا صلى الله عليه وسلم إنك أنا ما تدلني يرد إنه هضيع عروضان وحي كو عرب حانين إلهي النبي أفلقاديان الدين تأفلقاديان وملائكة أفلقاديان وميانا دوغين قراء نمن قرآن أخرنا يا أو حفاظة عيدوا ذي إن ليدوات كو قالوا ذي المنافقين اسكدا دينيو ملائكة إلهي الرسول كو أفكال لقود تاقي يا معشر القراء نمن كي منافقين تيجي أبا در يا صهيب يا بلال بي أركانو مال فرديا ولبا السفر بي هايانو غزوة جهاد بي أسعدين وارقوا الذين القرآن أخرس بدن له باللقو يري ماركا عنتاد اللعونينا محاين نقع عن توقوين ماركا دقالك الله قالنا محاين نقفوا ليسن أريقا سيكا ورما وأريقا نيمك الصومالي اعتراضو هدان علموي عدعن موي عيدان كادايو حقا قولوين كيغا قلبيت كايدادا هدان علموي عدعن موي عيدان كادايو maxay ka dhigan tahay hadalka ninka munaafiqa uu yiri ahdigii nabiga sallallahu alayhi wasallam ya ma'shar al-qurra ururkiinan quraan akhriska badan lahow marka dagaal la galayna maxay iniga fulaysan marka cuntada la cunayna maxay iniga cantuuga weyn ereyga inagu aan leenahay isma tagin ya waa istageen
ereyga baan la yidhi may waad gaalowdeen laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum wax cudurdaara ood sheegan kartaan ma jirta baa ilaahay ku yidhi waad gaalowdeen baa lagu yidhi iimaankiinnii kadib gaalnimaad ku dhacdeen baa lagu yidhi waad gaalowdeen famaa maxaad u malayn markaa ninka ilaaha iyo nebiga afka ku taagayana ilaahay hanu soo noqonno han toobadkeenno diintu kaftan ma gasho وما هو بالهزل بايلهاي وما هو قرآن دلدل مقلا دلدل مقلو ما آمن بالقرآن من استحل محارمه وحي قرآن كو حرمينك حلا الشدع إلهي الرسول يا قرآن كي سماء من باليدي الفرس قرآن كو محو حرمي قرآن كو بنتو حرمي قرآن كو محو حرمي قبضوا إني در خفيفة انتي حيرة مقالة دحمرتو قرآنك او حرمي قرآنك او حرمي دينتا إلا قد دالدالا قرآنك او حرمي قرآنك محو حرمي صلاة إني عمدا كود دافتا قرآنك او حرمي شريعة إسلامك وحي حرمتي نكا حلال كدك تبو نبي قولي هاي إلهي الرسول كيسي قرآنك سماع من بودو غفكاس إلهي هنوصل نغنو هنتوبت كأنه نتوب إلى الله oo diinteenan islaamka aan ku toosnaano asbaabta ina diinta ku toosnaata ku dhib yareynaysan waa labada shay culimadu leeyihiin al-iimaan dhammaystiran iimaan hadba inta iimaankaagu ziyaaday diintaadu ziyaadi iyo ma aragtaan mujtamac wanaagsan maxaa laga wadaa waa bi'ada waa bulshad wanaagsan عداد صاحب كدغتid umba diintooda adigana aad qaadana ogow la tusahib illa mu'minan wala yaakul ta'amaka illa taqiyyun ba nabigu haddaad cid la saaxiibi qofka muuminka la saaxiibu nabigu leeyahay gabadha muuminada ha la saaxiibto wiilka muuminka ha la saaxiibo haddii saaxiibkaagu uu yahay mid muumin oo taqwo leh xaga khayrku ku jiidi ogow ولا يأكل طعامك إلا تقي بالنبي يقول هذا بحين سيدنا وحا أولى يا سيسك إلهي كبقايا دا صدقات بحين سيد دا الزكاة بحين سيد حتى قرابة هذا هداد وحسين سيد كو قال لك عبسك لحريري وهرت وحصي لماذا كان إلهي كبقايا وحد سيسا إلهي طاعد سوء أديكسن وناقو أديكسن هدي آد سيسا لكن كان معاصدة يقفلت كجرة وحد سيسا إلهي عسيانك سوء أديكسن برقا مفسدك هتاقيرين صالحة آيا الله تاقير أمر والبا صالح يا فاسد مفسد يا مصلح دادكو أفر تاقيبود مدوا صالح ومد يسقو وناكسن كلية بس نفتي سوء وناجيي dadka kalena waxba kama galin saalix baa leeyahay waa saalixun li nafsihi waa qofka keligii naftiisa wanaagsan wanaajiyay weeyaan midna waa muslix weeyaan naftiisana uu hagaajiyo uu toosiyay dadkana uu hagaajinayo wuxuu leeyahay oo khayrka kale ku soo xidhma buu leeyahay madaaristu furaya ummadii buu islaaxinaya quraankii buu baraya gabdhihii buu asturka kala hadlaya sunnadii nabigu ummadda ugu yeedhaya masaajida tacmiirka ugu yeedhaya waa muslix weeyaan ka muslixu intuu adduunyada joogana ilaahay waxa uu leeyahay halaaga soo dadjin mayno وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون بإلهي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم إلهي ربك ماها كقرية ظلم كهلاقايا أيضا إهلكيكو أيهين كودتك وناقوك كشقينايا دتك قرية دا كنول حتى هدي شرك أي كجران هدي فساد أي كجران هدي ظلم أي كجران لكن دد مصلحين وناق أمد لدح وريقيا أي دح جوغان dadka islaaxinaysa ay ku dhex jirto ilaahay waxa uu leeyahay halaagooga soo dadjin mayno halaagi mayno amma haddii dadku ay yiraahdaan waan wanaagsanahay annaku dadka xunna waxba nagama gelin ka saalixa halaaga soo socda celin maayo macal isagana wala halaagi markaas صالح يا مصلح فاسد يا مفسد فاسد كنا واكن نفتيسه uu fasaadiyay مفسد كنا waa kan umada fasaadka la dhex socda balaayada qayliyaysa iyo
meela ayuu dhalinyarada ku kulminaya dhalinyaradii gabdhaha iyo wiilashu meelaha ku kulmaan buu sameeynaya mufsid ala talfasad meel walba dhigaya marka afartan qole adduunyada ku nool saalix muslix fasid iyo mufsid marka mufsid muslix waa inaad noqotaa muslix dadku inay noo hagaagaan waa in laga shaqeeyo hagaaga ummadda lidaalika madarasadaha jazaahum allahu khayr macallinka noo yeedhay allah ka jazaaysiiye waa asbaabta mujtamaca islaaxinaysa waxaa ka mid a madaarista qur-aanka ka mid ah bal waa ka kow qur-aanku qofku markuu qur-aanka barto qur-aanku qofka iimaanku u biirinayaa qur-aanku qofka xishoodku barayaa qur-aanku qofka akhlaaqdiisu u dhisayaa qur-aan haddii madaarista baa layidhi haddii man fataxa madarasatan aqfala sijnan bay dhahdaan culummadu qofka madarasad qur-aan lagu dhiganaya meel ka furay waxay ka dhigan tahay jeel buu ninka ummadda ka xidhay laana jeelashu meel lagu soo islaaxa maaha meesha ummadda ku islaaxaysa waa madarasadii masaajidda weeyaan in ummaddu masaajidda ay soo gashaana dacwadda u sababa in dadku ay madaarista ku soo xidhmaana macallimiinta ayaa u sababa daaciguna dadku masaajidda ku soo shubaya sida ay qasabadu biyaha ay barkada ugu soo shubayso ayuu daaciguna maaragtaanay masaajidda ummadda ku soo camiraya macallimkuna dadka ayuu ku soo xidhaya maaragtaanay qur-aanka marka qur-aanka ummaddu islaaxiyaa haddaad aragto ummad qur'aanka danaynaysa qur'aanka baranaysa qur'aanka jecel madaaristu u badanayso dadkaas waxay ka dhigan tahay dadnimadoodii baa soo noqonaysa fajazaahum allahu khayr macallimiintana waxaan leenahay ha ka daalina dhigidda qur'aanka aad dhigaysaan ha ka daalina laanna ilaahay baa inaga abaalmarin إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين قرآن كان إلهي عزب وكسينا يا ضدنا إلهي عزب وكسينا كرب وقاذا يا ضدنا إلهي إسلا كتاب كان هوس إلهي أدقى يا ضدك قرآن كان برا برتا ku dhaqma ummadda ku xakumana ka shaqeeya quraankan sidoo kor u noqon lahaa quraanku kor buu u qaadayaa dadka quraankan intay bartaan gadaal iska dhigay wax kale shariicad wax kale dastuur iyo nidaam ka dhigtana quraanka ayaa la harayo naartu quraanku ku tuuraya القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعل أمامه قاده إلى الجنة ومن جعل خلف ظهره ساقه إلى النار نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها قرآنك وشافع ويان وإرقية إرقية سنة والله أقبل يا وماحل مصدق والضوض ويان عد الضوضنا دودي سوى الله أقبل والله الرميسن نبي يري من جعل أمامه قاده إلى الجنة قفك قرآنك هرتي سكيلا قرآنك الجنة حق يدو قاضيا قفك قرآنك حق دب اسكدغنا قرآنك نارتو كتورابو نبي عليه الصلاة والسلام قرآنك حق هرق اسكدغ معنيه waa maxay imaam ka dhiga quraanka had baranayso eed ku dhaqmayso eed umad ku dhaqayso eed maaragtaane ku tarbiyadeynaysid waa inuu hada quraan laana quraanku waa shariicad dhamaystiran ilaahay baa noo soo dajiyay barka ilaahay diinta hay nagu sugo آمين هذا لا تكونوا إن معبوا نبي قولي أن تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا هذا المعني سوها حديث dadka ku yiraahda anu hebelo macaagaan ahay har noqon buu nabi guriye yaani qofka qof walba iska raaca qofka cidii u timaadaba ay ka haysato har noqon okay waa dadka yiraahda buu nabi guriye dadku haday wanaagsanaadaan wanaagsanaanay haday xumaadaan ma aragtaan iyaga uma ka midnahay ha oran buu nabi guriye sida ha noqonina kuwa sida oranaya walaakin wadnu anfusakum ba nabi guriye naftiina dariiqa mustaqiimka ku toosiya buu nabi guriye dadku haday wanaagsanaadaan la wanaagsanaada haday dadku xumaadaan buu nabi guriye ha xumaanina buu rasuulku yiri la takunu معاغانح أنو هبل بالنا جرا دت كان لا سعنا عالم كان لا سعنا بكورنا يا قاركود والعالم كعقو سعدا لا سعود شوخ عالم كان لا سعدا عالم كعقو سعدا
caalamku haawiyuu ku socdaa ha raacin ilaahay iyo rasuulkiisa iyo culimmadu warkay kuu sheegayaan raac caalamka waxba kaama gelin caalamku madaxu ku socdaa ilaahay iyo rasuulku waxay ku leeyihiin mijahaaga ku soo soco waad noo imanaye afaman yamshi mukibban calaa wajhihi ahadaa amman yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim lugahaaga ku soo soco lagu leeyo kaalay caalamkan la socdaa haddaad tidhaahda waxaad ka dhigan tahay indhali iyo dhegeli ayaan dadka u raacayaa caalamku maanta ma indhaqabee ha ku dayan waa la indhabeelay way dhagabeeleen dadka adduunyada ku nool maanta meel kale u socdaan raacin cid walba ha raacin dhangaagaale ha noqon cid walba iska raaca ilaahay rasuulkiisa kitaabkiisa sunnada nabi maxamed raac warka culimmadu ay kugu yeedhayaan baaqa culimmada ajiib waad liibaani adduunkan iyo aakhire kuwa ilaahay nebiga raacay haynaga yeelo insha allah dhahada maasha allah ku dadaala khayr baa inoo muuqda khayr baa ifaya zaman wanaagsan baad moodaa inuu zamankan yahay runtii sida ummaddu khayrka ugu soo jeesatay innakana waxaan rajaynayaa ilaahay inuu khaatimada inoo hagaajiyo waxaa khayran sheegaynana ilaahay inuu ka yeelo ikhlaas oo maalinka qiyaamahana ilaahay naga abaalmariyo diintana kuwa ku sugnaada ee ku khaatimaysta allah inaga dhigo hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala sayidina muhammad